السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري أصحاب تقاليقا ومركلي مقال كله عسويان قولاش السوداء سلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شاكدن قبل السوريسي اسلا قصدي قبل أي كل عذاب السوريسي قبل وحلا هذا شوق قبل ما قاعد سوما قرح بدنا يا سلام سال الدمعي شوقا بس وحسستي يا حبيبي إليك قبل ما قاعد وقرح بدنا هاي ما قاعد وياك بدنا idinka soo maray sheekooyinka ma ii sheegi kartaan asxaabta magacyada dadka qaar la yaab bay leeyihiin Soomaha qaar way qurux badan yihiin sida shawq oo kale magacii ugu yaabka badnaa ee idin soo maray ma ii sheegi kartaan ani baqti baa ugu yaab badnaa ninkii baqti loo oranayay ma xasuusataan wallahi si fiican bay u galeen laakiin asli iyo gabadhii waxay ahayd Safiya Asiil iyo Safiya si fiican bay u galeen baqtiya xasuusta horta aniga baqti baa ugu yaab badnaa magacyadii in soo maray bal magacyadii idinku yaabka badnaa commentiga iigu soo qor ani baqti baa iigu yaab badnaay almuhim shawq waa Sacuudiyaan jawf magaalada la yiraahdo jawfta Sacuudiga laba jawf baa jira jawf Yaban ku taala iyo jawf oo Sacuudiga ku taala waa Sacuudiyaanada marka jawftaas ku taala Sacuudiga ay deganayeen reerkoodu gabadhan la yiraahdo jawf waxay u weyn tahay gabdhaha wiilalna way ka weyn yihiin wiilalna way ka yar yihiin laakiin gabdhaha iyadu u weyn tahay noof gabadh la yiraahdo waa ka yar wiil baa ka yar caruur kala ka sii yar waxay tiri marka gabadhan la yiraahdo shawq waxaan go'aansaday dugsiga sare markaan ka baxay inaan sii wato jaamacad waxay dooratay marka oo ay ku takhasustay xisaabta waxay rabtay inay noqoto macallimad xisaabta dhigta jaamacadda markay gashay marka takhasuskeedii waxay baranaysaa wuxuu ahaa macalinimo iyo xisaabta markaan baranay waxay tiri aad baan ugu wanaagsanaa oo marka horeba sababta aan xisaabta u dooranay yani iskuulka markaan dhiganayo maadooyinka la qaato maadada iigu fudud bay ahayd waan jeclaa sidoo kale macalimad inaan noqdana waan jeclaayo waxay tiri waxay ahayd hamigayga يعني هدفكيga iyo riyada aan leeyahay ahayd mar uun inaan noqdo macalimad aan sarkaano glass dhex taagan oo arday 10 oo sharxaya shaqo waxay tiri marka ardayda aan wax isla barnay galaaska gabdhaha aan isla dhigano qaar badan oo kamid ah waxay iigu iimaan jireen guriga si aan wax ugu akhriyo oo aan casharada u fahamsiiyo qaar marka gabdhaha markay yimaadaan ay iimanayaan oo kale waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaad waxna fahansiisid inaad wax noo sharaxdid shawq waan ku mahad celinayna wallahi casharada markaad noo akhrinaysid si fiican baan u fahanaa qaarna waxay tiri dadka isku mid ma bini aadamku kuma oranayaan markay ku iimanayaan waxbaad noo akhrinaysaa iyo waxbaan rabnaa inaad fahansiisid waxay oranayaan waan ku iimaanaynaa waxbaan isla akhrisanaynaa si aan isula muraajacayno ana waxaan rajul tiri marka hay wax yar in yar waxay tiri kibri ugu jirin waan fahmo badanahay waxbaan fahansanahay ma dhihi jirin المهم واحد الجامعة وان صور دميني عدسيجي وحن قد بسنة مركا أنا قبلها أصحابتي هذا هذا معلني ماذا قفك مركا قد بستو وراقيه سيو شهادوين كيسة ده معلني ما أطل بضو معلني ماذا أصاب بحضو ميل الله على ما شيء دونتي دولته كقري تولا لو قري هدي له ربو تولا ير تولا وين مقالة عاصمة دا كوسو بحد دربت مقالة دقنت إني كوسو بحد الغياب يعني قف كستئي النسيب كيسة sanadkii koobaad waxay tii marka aan waxba iima soo bixin qaar laakiin gabdhihii aan isku galaaskeen wax isla akhrisanayna oo soo baxay sanadkii labaadna waxba iima soo bixin gabdhaha qaybtii dhinayd boo sanadkii labaadna waxay tii u soo wada baxay nasiibkoodii meelaha lagu kala qoray sanad labaadkii waxoogaa waxay tii marka waan yaro murugoodo sanadkii hore waxba ma murugeysnayn markaan arkay inaan ii soo bixin gabdho fara badan oo isku fasal ahayn ba uma soo bixin dib mala sanadka dambe iska sugi baan lahaa laakiin sanadkii dambe markaan arkay gabdhihii anoo wax u akhrin jiray guriga iigu iimaan jiray anigu yaani aan ka dhibca sareeyo dhamaantood shaqo u soo baxday waxoogaa waan yaro murugoodo waxaan anigu miyaa nasiib xumahay qof nasiib xum armaa noqdaa siday ku dhacday inayno waxba ii soo bixin hadana waan istajiyo waxaan isla insha Allah bal sanadka dambe baad iska sugi doontaa sanadkii dambe iska sugay sanadkii dambe waxay ii soo baxday bay marka shaqadii warqad socota baa la iigu keenay bay marka guriga waxa jirtay marka gabadh aniga iga yar oo xilligaas 18 jir ahayd oo magaceeda la yiraahdo noof taas waxay tir xaafadayadu dadka xaafada jooga waxay u yaqaanaan qof nasiib badan inay tahay maxduuda aad qof u nasiib badan yani xaafad kasta waxa jooga soma qof la yiraahdo uu nasiib badan yahay qofkan waa qumay oo nasiib xun yahay dadka xaafada jooga yani isku kaftamiya ama isku yara dacaayadaya أنا حافظي قبل واحد شوكت نصيب بدن بقول ويق أنا نصيب بدن ذا قفضو وحكى هلا أما واحد عصب هدي للربعين لفرو أما مثلا واحد هدي للربعين لتجابي أيضا الله درا سنقولها إن قبل وين نصيب بدن توابي نصيب بدن طيبة حافظي هذا هو يدي ستير عيال درش ستير دي يقدر نقول نصيب بدن وابلي قانا قبل واحد يصير مركز شوق وحن لها إن قبل له هذا نوف أو نصيب بدن waxaan u yeedhay bay marka noof waxaan isir noof baan nasiib badan ah ku furta bal waraaqaha noofay kaale baan waxay taan oo qaylnay qolkay ugu yeedhay way ii timid waxaan ku ii fur hada nasiib badan oo wada nasiibe ii fur qadan hay'ad way ii furtay
mise waxay tiri dee waan farxay marka warqadii la ii furay Riyaad baaba ii soo baxday caasimada waxay tiri dee waan boodboodnaani walaashintan saas isu qabsanay baan qolkii dhex boodboodnay anagoo qaylin hooyaday way yaabtayna maxaa idin ku dhacayna maxaa idin helay waxbaan dhahnay way tiri hooyo waxba naguma dhicin waxay tiri marka hoos baan u soo degay shawq waxay tiri marka aabahay wuu xanuunsaday xanuun baa ku dhacay isagoo dee qof aad u weyn waayay laba ahayn laakiin wuu indhabeelay oo indhala yahay walaalkayga iga weyn iyo walaal kale oo waxay tiri walaalka weyn reerka noo weynka ka sii yar iyaba mas'uuliyadda reerka haya carruurta marka qaarna waxbay bartaan jaamacada dhigtaan qaar waa de shaqadana markaas inta jaamacada ka baxday shaqay wax raadsanaysa laba wiil waaweyn way shaqayaan aabaha reerku marka uu indhala yahay ilaahay ha uu gargaaray shaq waxay tiri marka hoos baan u soo degay aabii hooyaan oo yimid walaaladay oo dhalan oo wada joogan hoos u soo degnay aniyana oo faqaylinayna de orod baan jirta kaga soo degnay waxaan u sheegnay marka inay shaqo ii soo baxday oo waliba xagee ii soo baxday Riyaad walaalkii wuxuu yiri wallahi waad nasiib badan tahay 2 sanaad ku haysay anigu waa nasiib xumahay dadka qaar kood waxay tiri marka waxa u soo baxay tuulooyin fog iyo gobolo fog xuduudaha meelaha ku yaala baa gabdhii waxay tiri qaar kood u soo baxay meesha ku soo baxday baadna aadi deega bedel xataa ma dhigi karto bedel markaad codsanaysid waa inaad horta meesha tagto oo muddo shaqaysatay dhowr bilood ama sanad markaas bedel codsan kartaa laakiin meesha markay saa kuugu soo baxday adoon ba shaqaynayno meeshii tagin iga bedel lagama yeelo waa inaad horta meesha tagtaad muddo ka shaqaysaa markaas aad cudur daare iyo dhibab iyo waxbaad sheegani wasaaradda tacliinta iyo waxbaad u gudbisani kadib baa lagu bedeli waxay tiri marka qoyskayga dhan farxad waxa la yiri ma sha Allah waxa tahay gabar fiican wad nasiib badan tahay caasimada ku soo baxday wad nasiib badan tahay walaalkay waxay waraaqay iga qaaday wuxuu fiiriyay marka magaca madrasada iyo meesha ii soo baxday walaalkay waxay tiri marka wuxuu lagu diyaarinayo diyaar garoobaysa marka lagu soo bacad baxaysa bal waxaan aadayaa Riyaad sababta walaalkay waxay Riyaad u aadayo noomu sheegin markaas uu baxay Riyaad buu aaday iskuulkii buu tagay agtiisii agagaarkiisii wuxuu dhan buu soo wada fiiriyay gurigu iiga kareebay marka iskuulka agtiisa gurigu marka uu ii kareey walaalkay waxay tiri waa 2 qol 2 qoloo de adu hal qof ku filan 2 qof ilaa xataa 3 qof oo iska bala ku filan hal qol qolalka uu loogu talagalay dadka dhalinyarada ama dad laba lamaan oo midna isku cusub xataa uu qaadi waa qol iyo fadhi iyo musqushiisii jikadiisii wax walba laakiin qolkii fadhigu waa qol iyo fadhi isku dhex furno studio ma qol iyo fadhi caadi oo kala go'an qol kasta uu gaarkiisa yahay weeyaan waxay tiri walaalkay qolkii uu hagaajiyay waxay ka dhindhinaay oo dhan inta badan guriyaha waxa lagu kareeyaa macal alaabtooda laakiin waxay ka dhinaa buu u soo dhameystiray wuxuu sameeyay gaari yar buu iibiyay tiri oo caasi yaro oo caasiyada yani baaburada yarka caasiga u yara eg caasigana ka sii yar nooha maal dhaha mise caasi iyada caasi bay dhahday fan baabuur yaro caasiya buu waxay tiri iibiyay wuxuu soo qabtay tiri nin la yiraahdo Najiib oo Hindiya oo darawala ninkii wuxuu yiri si bal aan ku eego ina darawal buuxatay meel heblaay igee soo celi meel heblaay igee tuulay aadeen magaalada ka baxeen way ku soo noqdeen wuxuu arkay darawal farta ka xiran inuu yahay darawalka lacagtiisii buu u qadimay xataa bishii koobaad guriga lacagtiisa 6 bilood buu qadimay wax alaala guriga wixii ka maqnaayay wuxuu islahaa uu ka maqan yahay oo dhan waxay tiri u dhameystiray darawalkiina uu diyaariyay darawalka qolbu wuxuu ka kareystay meel aniga meeshan deganahay u dhow wuxuu yiri marka halkaas aad deganaanaysaa gabadhaas aad iskuulka geynaysaa waad ka keenaysaa wax kale ma qabanaysid gabadhaas aad u shaqaynaysaa inaad iskuulka geyso inaad ka keento meel kale ma aadaysid haddii gabadha iyadoo ama iskuulka soo baxday ama u socota ama suuq rabto inay aado ama suuqa intii aad rabto inay ka soo noqoto 1 daqiiqo haday ku weydana 1 daqiiqo haday ku weydada waan ku imanaya anu meel fog ma jiro joof baan deganahay waan ku iman gabadha waa inaad si fiican ugu shaqaysaa haye baaba hindidu marka meelaha ka shaqeeya carabtu nimanka dhan aabay dhahan haweenka dhan hooyo ma garanaya sababta wax alaale wixii dumara hooyo yaqaanaan maama wax alaale wixii ninana waa baaba marka wuxuu yiri haye aabo haye baaba mamay wuxuu anigu waxaan qof fiican oo daacad oo shaqadiisa qabsado wuxuu yiri lagama yaabana gabadhaas inay iga soo dacwootay qalad iyo waxaas inuu iga yimaado walaalkay uu soo baxay waxay tiri marka joofku noogu yimid gaari buu gaday darawal buu diyaariyay guri buu kireeyay alaabtii buu dhigay wax kasta uu ii soo dhameystiray iskuulka agtiisa meel oo aad uga basii fogeen خلاص waxay markuu yimid oo noo sheegay markuu yimid waxay tiri xilli wuxuu soo yimid uu soo dheelmaday guriga soo dheelmaday habeen subaxii markii la quraacnay miiska meeshii lagu quraacnay anagoo isla wada fadhina wuxuu yiri marka way baxaysaa gabadhan waan kaxaynayaa maanta waxaan geynayaa magaaladeedii waa inay bilowdaa shaqadeedii wiiga soo socda marka gurigeeda ha iska sii hagaajisato haday wax u baahan tahay shopping iyo waxaas iska sii iibsato ha iska sii diyaar garoodo iskuulkeedii iyo gurigeedii waxaasna waa sii tusaya markaas la gurigeeda wuxuu yiri anigu Soomaana Riyaad ku maqneen gurigaan u kireeyay guriga marka alaab yar waxba ka dhidhnaa wixii oo dhan waan u soo iibiyay waan u dhameystiray gaari baan u soo iibiyay darawal baan u qabtay wax kasta waan u diyaariyay
waxay tiri anigu waan farxay miiskii waan kasoo istaagay walaalkii baa madaxa ka dhakado waxaan ku dhawaad mahadsan tahay may wuxuu yiri waxaas walaalkaabaan inaan kaa fikir meeshaad degaysa iyo meeshaad ka shaqaynaysa wax walba inaan kaa arko kaa soo saxmiyo aniga waajibkayga tahay waan israacnay batiri marka aniga walaalkii hooyadii aabahay waan maca salaameeyay xaafadeedii waan maca salaamay aniga waxay tirtay marka xamaasad baa ay haysa sababtoo waa markii ugu horeysay shaqo bilaabayo shaqadaydu inay riyaad ka soo baxdayna sidaan ugu faraxsanahay lama qiyaasi karo waan soo raacay aniga walaalkay waxaan nimidnay gurigii ninkii buu ibaray darawalka hindiga ninka waxa la dhahdaa Najiib aniga Najiib waa isbarnay teleefankiisii baan ka qaatay khalaas waxay tiri marka waxaan bilaabay marka inaan shaqadaydii bilaabo walaalkeen buu iga soo laabtay ninka la dhahdo Najiib iskuulku igeeyaa kadibna wuu iga soo celiyaa iskuulka waxay tiri maalinkii koobaad markaan saas u tagay waxaan u tagay maamulaha xafiiskiisa la tagay maamulaha xafiiskiisa marka tagto marka fasalka aad ku qoran tahay iyo casharada aad bixinaysid iyo inta xiisadooda bixinaysid iyo waxaas iyo waxbay ku sharxaysaa waxay tiri Riim baa la yiraahdaa maamulaha iskuulka dabcan gabdhoon baa dhigtay wiilal ma dhigtaan maamuluhuna waa gabadh macallimiinta oo dhanna waa gabdho waxoogaa waxay tiri marka aniga ardaydii baa isir fahmi weynay oo gabadhan waxay dhigaysaa dugsi sare fasalka saddexaad ee dugsiga sare lagu qoray oo dhigtaa fasalka saddexaad ee dugsiga sare ee gabdho 18 jir iyo 17 jir ayaa dhiganayo ma gabadha ugu yara dhiganaysa waa 16 jir waa xilliga marka dhalinyaradu ay muraahiqiinta yihiin dib ka meeran yihiin waxoogaa waxay tiri marka aniga ardayda maalmihii hore waan isku yar wareernay waan isfahmi weynay haddana waxaan fahansanahay dhalinyarada waxaan iska dhalinyarihiin aakhirka waxay waan isfahnay waan isla keenay si fiican baan isu fahnay saaxiib ay ila noqdeen wiigii hore way idhibayeen muddo adugu ilaa bil ku dhawaad waxay tiri waxoogaa waan isfahmi laayno dib baan ka tamanayo ana islaha adkayso waad fahmi doontaa ugu dambeyn aniga ardaydii waa isfahnay waan saaxiibnay aniga macallimad maamuladii ahayd Riim sidoo kale waxay tiri waa saaxiibnay maamuladii Riim ahayd maalinkii koobaad ee shaqada bilaabay waxay ii keentay bay tiri box qalimaan ah oo cusub box qalimaan cusub qalimaan hadda safarada lagu dhigo box qalimaan cusub ah oo ay ugu tiri waxaan kaaga dhigay hadiyad shaqo wacan maadaama ay tahay shaqadii kuugu horeysay aad bilaabayso maadaama ay tahay maalintii kuugu horeysay shaqada aad bilaabayso iyo fasalkii ugu horeeyay ee aad wax u dhigaysid oo qalimaantan ana ku siiyay hadiyad baan kaaga dhigay shaqo wanaagsan sidii baan waxay tiri marka shaqadii ku bilaabay gurigayga iyo darawalkayga iyo guriga lacagtiisa waxay tiri walaalkay 6 bilood buu sii qadimay guriga darawalka shaqada ardayda maamulaha wax walba waa isfahansanahay noloshu waxay tiri iyadoo degdeg iyo qurux badan baa waxaan isbaranay tiri sheekha gabadh la yiraahdo macallimiinta kamida oo dhigta fasalka koobaad ee dugsiga sare iskuulka dhanba high school weeyaan fasalka koobaad bay dhigtaa sheekha aniguna waxaan dhigaabay marka fasalka saddexaad sheekhadan marka waxay tiri marmarka qaar waxay ka caban jirtay walaalkeed ba iskuulka keena walaalkeed ba hadana qaado guriga ku celiya walaalkeed waxay tiri iyadu marka mar walba istagaal jireen mar teleefanku ka qaban waayay mar uu ka soo daahay mar wuxuu gaari may gadato waxaan gaari may gadato lacagteeda xaqiiqiisa way shaqaysatay maxay anaga noo dhibaysaa isagoo karaahiyeysanaya oo qaadi waxa macquul in jidka isku dagaalan marka intay sii socdaan bad islaayaan isla murmaan ay tiraahdo maxaad noo karahsanaysaa maana kuuri imo aabahay hooyadaba ii soo kaadiray uu yiraahdo isaguna maana ku iman lahaaba aanu reerkiiba ii soo kaadiray aabihi hooyadiiba oranay yani gabadhii doon isaguna mar raba gabadhan inuu doono waa inuu la murmo ka xanaajiyo marka si ay u diiday ku tiraado haba ay qaadinba waxay tiri marka sheekha waxaan u soo jeediyay fikrada waxaan aadi walaalkaa dad isku kharibantiin bal ka waran dad aniga ila degtid qolka kiradiisana ila bixisid darawalkayguna oo ina keeno oo ina celiyo darawal gabigiisa shaqadiisa oo ay darawalnimo u tahay oo cidna karaxsaneen oo cidna dhibsaneen oo mid kale qof fiican baan haystaa waxay tiri Najiib wuxuu ahaa darawal baariya oo fiican aad baari u ah oo iskuulka markuu geeyay waxay kula iska tag inaan dhaha ma ahane maanta iskuulka inuu hortaagnaada macquulada inta 8 saacadood mise 7 saacadood shaqeynay haduu doono halkaas iska taagnaanaya waa in la yiraahdo iska tago hadhow baa ku soo wicii suuqa waxa la waxaan uga baxdo dhan waxa uu dirsan jiray wax kasta uu ku soo iibinaysaa ugu dirtay buu ku keeni qof wuxuu wanaagsan ee oo shaqana horbo baari oo iska fiican waxaan idhi markaana inoo haya darawal wanaagsan darawal fiican baan inoo haya oo aan ku karaxsanaynin qolka umbad kiradiisa ila bixini walaalkay waxa bixiyay 6 bilood marka waxa 6 bilood oo isii dhamaanaysa bil bas ka dhiman 6 bilood walaalkay bixiyay bil hadda soo socoto waan iska dagalaanaynaa bishaas markay dhamaataan hadana 6 bilood iska qadimaynaa lacagta isku darsanaynaa darawalkaygana ina sii qaaday ina soo qaaday ka waran waday aabahay reerkina u sheeg way haybad reerkaygan u sheegay haday reerkay ogolaadaan aadaan kula soo degayaaba kadibna kharashka waan isla baxsanaynaa cuntada talaajada waxa looga baahan yahay wax kasta biyaha gaaska wax walba waa isla bixinaynaa iyo kiradaba darawalkana ina sii qaaday ina soo qaaday way hagaag
waxaan ku yiri bay tiri marka darawalku maadaama ani markiisii horeba uu ii kireysnaa oo ani uu yani haddaad adu iraacdid iyo haddaadan iraacinba waxba uuna igu soo siyaadaynin waxba darawalka lacagtiisa ha bixinin waxyaabaha maciishada la isticmaalayo gaaska biyaha korontada waxaas iyo raashinka iyo aan isla bixina iyo kirada darawalka Soomaali lacagtiisa ana bixinay adu shaqo ku milid waxay tiri hayo waad mahadsantahay khayr Allah ku soo reerkoodii bay la soo hadashay waa la soo fasaxay way soo guurtay boorsooyinkeedii bay soo qaadatay walaalkeedii ay istagaalayeen isnacwaayeen laftirkiisa soo qaaday guriga iyo waxba soo arkay wuu yimiday waxaan ku marka guriga waa kan halkan qolkana isla degaynaa qolkana wuxuu noo noqonayaa fadhi halkaas waa jiko halkaas waa musqushi cidna ani ma timaado asxaab ma lihi ma baxo macallimad baana iyaduna waa macallimad isku shaqaana isku meel baan degaynaa wax dib u jira ma jiro wax waaye wuxuu marka dib male waa gabadha ay isku shaqeeyeen macallimada way la digi kartaa wax dhib male guriga rabo inaan soo arko alaabteedii wixii uu gaariga uga soo dajiyay aniga sheekha waxay isla soo degnay aniga sheekha markaan isla soo degnay waxay tiri marka sheekha waxay dhihi jirtay markaan nimaadno waxogaade aan yara baxno moolkaas aan aadno halkaas aan mool laga furay moogtay maqaayad cusub halka laga furay moogtay waxay tiri marka anigu ma ihi dabeecadayda dad baytuut qof ah soo ma jiro iska jecel inuu guriga joogo shaqadiisa guriga aad inuu uba bixiyo meelaha inuu warwareego qof aan jeclayn iyo qof jecel hadii maqaayad cusub la furo inuu ka wardoono mool cusub hadii la furo inuu ka wardoono suuqa inuu aado bil kasta inuu shoobin iyo dhariyo wax soo iibsado sheekha dabeecadaas ay leedahay marka waxay tiri marka dhowr maalin marka meel ka xakaashay markii waxaan ku anigu meel inaan aado ma jecli mool cusub maqaayad cusub iyo waxaasna inaan tijaabiyo ma jecli haddaan baxayana dhowrkii bilood ban hal mar suuqa aada waxaan u baahnay bas aan soo gataa لأن هذا مالك السوق إسكا أدي وحيالات وبحني بات سوق ذا وحيل عقبة كاجا بحي سماية وحنا دبتنا أنا بحيتها كان فرها بدن مرة بو هي وحيت المركب دم مالي أنا بحي مرمر وحيت مرمر بيبيح شرت كليد ترولك إيه ترولك إيه وحسيلة هاد مركب ترولك لما ركيسي بقرطي ترولك إيه وعتها ويبحذا ما يلهي سوركتها ترولك وسوع عليا هذا نويسي بحذا هذا نويسو نقطها بشي وين معطي وبشي كردناyd 6 bilood guriga la bixiyay waxaan ku marka sheekha way dhamaatay bishii hadda aynu isla bixino ani adigu 6 bilood ee qadimaad ahayd guriga lacagtiisa 6 bilood baa loo qadimaa waxay tiri marka Allah anigu lacag ma hayo waan ka xumahay lacag meel ma dhigto ma ogtahay walaalkay baa lacag iga deynsaday reerkaygaan biil siya wax lacag waan meel dhigtaa ma jirtaba in aanay ugu baxdaayo waan shopping badanahay oo mar kasta suuqa aadana shopping iyo waxba soo iibsaday lacag baa iga baxday wax lacag waan hayaa ma jirtee adigu 6 bilood ba bixi aniguna 3 bilood soo igu soo hagaagi lahayn adigana 3 bilood 3 bilood ani igu soo hagaagi lahayd bil baan ku siinay 3 bilood oo soo socota baan waxaan bixinayaa lacagtii guriga oo dhameystiran sidaas miyaha saasame adiguna waxaad samaysaa bixi hadda 6 bilood qadim 3 biloodna bil kasta aan bixiyo marka lacagtii guriga oo dhameystiran 3 bilood marka lacagtii guriga oo dhameystiran bixiyo khalaas taasay lacagtii iga baxaysa hay way iyada marka waxa laga rabaa 2,000 oo riyaal baa laga rabaa bishii inay bixiso bishii koobaad waxay tiri 1,500 bay bixiso waxay 500 kale maxay baan ku iibsaday maxay baa la igu lahaa deyn baa la igu lahaa maxay baa saan aha walaalkay baan lacag siiyay iga qale hay bishii dama waxay tiri 1,000 bay bixisay haddana 500 baa bishii hor lagu siilaha ma ogtahay haddana 1,000 bay bixisay 1,500 baa lagu leeyahay marka iyo xalaashi waxaan isdhihi jiray bay tiri iska dhaaf bal waxba ha culays saarin laga yaabo in reerkooda wax siiso laga yaabo reerkooda inay iska dan yarhiin ha cadaadinin marka waxay tiri marka guriga adeeg iyo wax uu u baahan yahay marmar dhifay lacag igu darsani inta badan anigu baa soo adeegay gabadhiyo waxay tiri waxaan maqlay oo iskuulka gabdhuhu waxay leeyihiin Soomaaliya macallimiintu waqti yar oo yar break ah oo iska yar sheekaystaan oo kafee iyo shaah iyo wax la caabo waqtiga nasashada ah waqtiga nasashada waa la sheekaysan iskuulka dhan macallimiinta dhigta waa gabdho gabdhahaasi marka meelahan ay fadhiisanayaan koox way sheekaysanayaan xilliga oo break time-ka gabdhihii markay sheekaystaan ba waxa la yiraahday baryahan walaalkaaga isdagaali jirteen waad ka raysatay waxa ku qaado darawalka shawqi adiga shawq baa isla degay baan maqalnay ani shawq baa isla degnay bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi bilaa shawq way igu raysatay kulaha oo maxay ahayd hadii talaajada cuntada ka dhamaato fruitka iyo waxyaabahan hilibka iyo waxyaalahan chickenka iyo frencherka la gali ana soo iibiya guriga kiradiisana bismillaahir rahmaanir rahiim bil baa laga yaabaa ayadu inay bixiso inta kale ana bixiya maxay baan gaariga maalin kasta baasiin baa ku shuba intaan maxay ka sameey sida waxay tiri gabadhii dhalmayda aniga hadda gurigeyga iskaga nooleedeen isla cadaadinin maadaama tiri reerkayga iyo walaalkayga waxbaan biila inay aniga biisha camal warkii waxay tiri anigina la ii keenay anigi waan xanaaqay maalin baa waxaan qabsaday bay tiri marka shawq aan ku yiri shawq haye
waan kaa xishoodaa waxaan isdhahaa gabadhina waa marti gurigaagii bay joogtaa lacag ha weydiinin inkastoon xaq u lehay wax kasta inaan ku weydiiyo sababtoo laba qof oo iskaabilo guri wada degan baan nahay yani qof guri loo oo maxay ahayd reer ah ama imaada soo martiin iskaabilaan ahay waan shaqaystaa waad shaqaysataa isku shahar baan qaadanaa xaq baan u leeyahay haddaan gurigan wax isku soo wax haddaan soo gado 10 riyaal 5 bixi inaan ku dhaho maxay tahay beentii khayaaliga dadka ugu sheekanaysa Allah waxay tiri showqay miskiin sanida يا قلبي قاقوا نظيف وحكست ود إسك آمني والله وحاتي مؤمنة دين بدن ما بليهد بعد مركز ساس قدمت هذا جنة قالي هاي جنة إذا كبحهم حد بيت وشيء جالسة مو أوجد مياه سكول كان قبلها شو واحد سكول مركو يجي سهريس الشيخ خذوا ومنافقين ضدك إسكودران ما دام قري سرد جنها أو هل ضرب أو إنقاض وصاحبنا أو إسجعلنا إنت سيكحيين وحاسدين ومنافقات مو أوجد مياه وكاذبات هالرميسن مساسة هي بلواي هي ده وحاس أورانين وحاس واعيبي labadeen un baa ilin guri isla degan gurigeena labadeen aan isla degan waxa ka dhax socdo gabdhahan warba uma hayaane tabal hayaha dad waxaas ogeyn waxay tiri hayay tir markii waan iska cafiyay gabdhaha waa munaafiqaadi waa kaadibaad iyo waa maxay waa sidan ay tiri waan iyadii baan waxay tiri rumaystay waan aaminay maalmaha kamid ah waxaan aragnay bay tiri marka aan iclaamka ku aragnay madrasa yaro hal saac u jirta meel tuulo yar oo hal saac u jirta Riyaad oo laga doonayo gabdho macallimiin dugsi sare oo habeenkii dhiga waxa ku yaala tuulooyinka iskuulada dugsi sare iskuuladaas maalinkii arday caadi ah dhigato oo dhalinyaro oo dad yar habeenkii waxa dhigta marka gabdho waaweyn 25 jir 30 jir 40 jir hooyooyin gabdho maxay ahayd marka yareeraan waxba aan la barin oo gabdhaha waxbarashadu dhaaftay oo dhan markay iyagoo waaweyn soo baraarugaan ay dhahan hadda rabnaa inaan wax barano habeenkii baa wax la baraa si shahaadadii dugsiga sare loo siiyo habeenkii baa marka loo caadi u dhigtaanba iskuulka laakiin ma dhiganayaan waqtigii ardaydu maalinkii ay dhiganayaan waqti la eg waqti ka yar yani maqribkii oo kale galayaan bacda maqrib 9 fiidnimana way ka soo baxayaan 3 saacadood amal baa 10 la siini sida u dhiganayaan kolba fasal ugu gudbiyaan hadhow shahaadadii dugsiga sare qaadanayaan haday jaamacad galayaan iyo haday shaqo ku dalbanayaanba gabdho waxa jira marka tuulooyinka ku nool oo badan oo habeenkii loo dhigo iskuul maadaama